صفية تصمى واحد تري انت انا قارين قعنتي ذم السري قعنتي ذم السري عيلي وقابوبي قذبتن ترسانينا عيدي اي قرابي نانيقا تلادايدو قدر سارنا تقودكي اديقانا قراتك عندها لقليو وقبي وحقارشada waa lagu gaabshay mid gargaar ahay tarin aniga inaad gabar jeclaato waa waxa labaad aad sameynayso marka koowaad waa inaad barataa sida haween loo xushmeeyo gabar kasta oo ciishaysan oo murugaysan oo inta iyo ciilka waxa baday mid dhaqan aan ogeyn gafka iyo gabadha gardarrada uu geystay iyo dareenka ay tabanayso qoyski iyo ruski qarnigii hore بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان سومالوين بين البدونية كجوكتان إبها وين واحد إنه كود الرجين يا عافمات يا عبادة الصوبان متكسو مراد له إنه كم إذا إنه مراد كيسة مت خير كردقو كوا حنوسن إبها وين عافمات تام هالسيو كوا جريودي جندي وتقولي هوي هاوجي ولا كوا لقى جريودنا سمرية إيمان هكسيو كوا دش هايستا الله عدل بركيسن هاوجد قدر شو هذا كوا عندل هايسن عدل شو جاينا كوا بركيسن هالسيو لما هو عندل كيني يرونا بضا يدات كأنه مدرسنا الله وين ودي سنية دالجوج يدي بالجوب برامج كان عاوة كهلا يوا صفية تصمو هو يدي أن قلبت لها هنا عابة هلي هذا بقى قف كل وجه يستغفر البوجر يغان وجر شله هو قرنية إن أي سنة هين مدة مضنتها إن عيب كسلين تاي أساءته أنت يعني نقول لك إن برنامج كوي إنه هرئ جوجي عاد بعد ما سنتين كوي ندم نجا صبير دوننا سامين يا سماء يا نوت هاي سبسكرايب تسير ده ولا وذاك فريمها برحان يعني مركز سجل الله هي هو عقلينتها إن نقول شذا اللي وذاك haddaba gabaratan aan imika idin tusi doono waa Safiyo Tusmo walaasheed oo ka faalloonaysa ninka kan la yiraahdo Cabdi Ciise Cajuun oo ah kii ay gabadhu guursatay xilliga ay isguursadeen iyo xaaladeeduna ma aha mid maanta uun bilaabatay waa mid ay muddo qarsanayso haddaba balleer daawada inta aynan guda gelin nin ay islahayd maanta ka meedho wixii ku soo maray oo guurkaaga ku deg ayay guursatay magaca ninka guursatay Safiya waxa la yiraahdaa Cabdi Ciise Cajuun ayaa la yiraahdaa Cabdi Ciise Cajuun waa father of 7 children caruur leh oo reer leh qaahir uu joogay markay guursatay noloshiisu may ahayn mid isku toosan haddaba ninka kan Safiyo Tusmo ceebeeyay ee ciilka la doonay waa sayigeedii iyo kaysanaha ka doonaysay hooyada Soomaaliyeed ninka kanu uu xumeeyay wuxuu haystay oori hore oo 7 caruura cid looga dhaqaaqay walaashay Safiyo Tusmo hadii ay aragtay nina kan waa mid oo inuu yahay mid 7 dhalaana dibad uga dhaqaaqay inay darajo iyo waxa weeye dareen ka doontaba ma ahay oo isagaaba dawlad dhan ka soo tagay waa aragtidayda haddana alafka sidiisaba nasiibka u saxano malaha waxay istiri waa saraada kan iyo kaad ku magaranaysaa ay samee lahayd taasuna waxay dhashay inuu dimidaabyo la doono haddaba sida aan qabo Safiyo Tusmo waa hooyo godob aan gelin garna waxa weeye u baahan iyo Soomaali inay garab istaagto kaliya ninka kanu inuu ciilay ma aha waxaan ogsoonahay in Hargeysa lagu xiray dadka xirayna waa dad Soomaaliyeed oo loo baahan yahay inay darajadeeda iyo waxa ay mudan tahay gabadhaas yaani marna aynan ciilka ay qabto ciilka ugu darin haddaba ninkii maanta gabadha ceebta u geystay ee sawirkiisu halka idin ka muuqdo ee dulaysan ee dayaciyada waxa weeye diiftu ay ka muuqato maanta waa baxsad waxaana la sheegay maantada la joogo inuu jigjiga dhuumasho ku soo galay magaalo la yiraahdo ama degmo la yiraahdo Daroodna bariyaha kan uu ku dhuumanayay haddaba Safiyo Tusmo waxaan daawaday barnaamij ay ka faalloonayso xaaladeeda runtii qof kasta oo dareen leh kolka uu daawadana uu ka damqanaya waxa ka muuqday gabadha ciil iyo calooliye ay muddo qalbiga ku qarshanaysay hase ahaatee inta kaliya kuma ekee waxa kan waa wax rikaato looga dhigay suurad ay la gashay iyadoo samigeeda islahayd xusuus iyo dareen ha ku ahaato fiilada iyo ficilka xun ee loo geystana waa wax cabsi nafteeda geliyay mustaqbalka dambeeya aayaheeda waa hooyo haysata ciyaal waxana la sheegay mid kamid inuu xanuunsan yahay ee baahi hawo caafiye hana uga dhigo dambi dhaaf
dadka qaar dhaliil iyo iinbay uga dhigayeen hase ahaatee waa kuwa aan aqoon iyo maan iyo garasho toona lahayn eebbahay abuurtiisa wax xeman lagu tilmaamana xaqiiqdii aan ahayn wax wanaagsan. haddaba qofka uu ka samirka badan yahay adduunyada waa lagu imtixaama sidaynu ogsoonahay. safiya tusmana kama khayr badna oo kama fiicna ambiyadii ilaahay. ambiyada ilaahay eebbahay oo doortay ayaa la imtixaamayay. qaarkood dhashoodu isdilayeen, qaarkood jannada laga soo saarayay, qaarkood iyagoo yaroo sabiya badda lagu tuurayay, qaarkood baddu la qariqmaysay oo waxa weeye libax badood afka u gelay. intaasoo imtixaanana ambiyada waxay ugu dhacaysay in wax kasta oo bini aadanka eebbahay ku dhaca ay dulqaad ugu muujiyaan, sabrkaasuna uu yahay mid eebbahay raxmad iyo naxariis uu ugu bedelayo. alaaba waxaa la imtixaamaa kuwa eebbahay doortay ee uu ku ogyahay tanaasulka iyo alwaada beerka beenla inay yihiin mar kasta kuwa u noqda allaha weyn. haddaba walaashay safiya waxaa leeyahy, walaashay annagoo idil baa ku garab taagan, annagoo idil baa ku garab taagan. wax gaf ah oo aad geysatana haba yaraatee ma jirto. wax dulmiyo aad geysatay haba yaraatee ma jirto. wax ceeba oo aad mudan tahay haba yaraateena ma jirto. dulligaa ku ciilay ee ku handaday ee ku hanjabaya ee sawiraanta dibadda soo dhigay, qaar kalena kuugu goodinayo inuu dibadda soo dhigo, xataa haddii uu soo dhigo ceeb maleed. sababtoo ah diinta kama aadan bixin, jirkaaga kama aadan ganacsan, cid ma dulmiin, mar waad ahayd ninkay samaha ka doonaysayna uu dulli ku noqday. waxaa la yidhi inkastoo nin geesiya raggu geyd adeeg yahay haddaanan garabka lala qaban oonse lala ganaanoodin guri oodmi maayo. garab baad u noqotay, gaashaan baad u noqotay, iska daa wax kale isagu inay ku beele ahayd oo dee eebbaaba tilmaamay ninka camalkiisu waa inuu xaaskiisa biisho, adigiibaa isagii biilayay oo makaankiisii buuxiyey. markaasuu waxaasoo macni iyo maamuus aad la doontay arki waaye. ha ciishoon walaashay, ha ciishoon. waxa ku garab taagan waa Soomaali oo idil. wax xuma aad samaysana maanta mid kasta oo maan iyo maamuus leh wuu ogyahay inaysan jirin. dhashaada ilaasho, aayahaagii horumarkaaga ka shaqay, nolosha inta aad nooshahayna farxad ku noolow. kuwa dulaysan ee gabadha inta la doonayo oo dumaroo qaar ku diganayaan waxa ka badan inta garashada leh ee garab taagan. maalin aan gabdhaha Soomaaliyeed kaga farax badanahay maba jiraan. sababtoo ah awal iyagaaba isku digan jiray, gabadhaas 99% garab bay u muujiyeen oo hablahan waxa arkeen dulmiga loo geystay iyo sida ay isaga dhoohan yihiin. haatan saxaawalay way xisaabtameen oo xiskoodii shaqeeyay, haatan soo isxasuusay. nin kastoo garasho leh oo Soomaaliyeed oo gob macnaheed iyo gabdhahan waxay mudan yihiin ogina dulmiga lagu geystay marna qaadan maayo. lacag baa la dul dhigay maanta si loo soo qabto, isagoo dulaysanna insha Allah xabsi buu galaya. hawlwali walaashay kuwa gabadha meelaha sawiraanteeda soo dhigaya ee ceebta la doonaya ee dhunkashada dhaliil uga dhigaya, wariyaara ceeb ma laha. gabadhaasoo ceeb ma laha ha ku dufoobinina. kuwa ku diganaya ee in uga dhigaya qaarkood raglamood ay yihiin midaan arkaya ee naannaaba ee ninka waxa weeye difaacay dulli baa tahay aan darajo iyo damiir toona lahayn. bariya meena hooyo ku dhalan oo lagu foolo 9 bilood uurka lagu sidin mise waa lagu saxarooday. kuwa gabdhaha ee gabadha ku diganayana adeer xalaal baa lagu guursaday xilkas weeye gabadhaas. waxaad la maagantihiin inaad ceebta uga dhigaysaan berri bay idinku dhici doontaa ama idinku dhici kartaa. waxa weeye safiya walaashay amrugoon laa taxsan, ha ciishoon, ceeb ma lihid. ilaahay ciyaalkaaga kuu barakeeyo, aakhiri adduunna ciil kuma bado. barnaamij kale oo kale oo intaan dib ugu kulmaynana waxaan idin leeyahay bulsho warsan iyo war khayr. asalaamu calaykum waraxmatullaahi.